الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. hooyo uur le markaa maqashid maxaa kugu soo dhaca? hal qof hal su-aasha iga jawaaba. hooyo uur leh aragtid maqashid maxaa kugu soo degdega? farxad. maasha allah, that's something positive. waxaan isla arkaynaa khataraha qarsoon ee sababa dhimashada hooyada uur kale, laakiin Soomaaliya markaan joogno it's not always farxad kama hadlayno. sida caadiga waa inay farxad ahaataa, waa inay ahaataa wax aad u qurux badan, hooyo dhalaan korinaysa, bulshada wax ku soo kordhinaysa, wax weyn ku soo kordhinaysa. laakiin markaan Soomaaliya joogno waxaan ku bilaabanaynaa sheekada hooyo Zainab. hooyo Zainab waa hooyo waxay dhashay 8 caruur ah, ku nool layd deegaan ka mid ah deegaanada Puntland. hooyada uurkii 9aad markay lahayd ayaa waxa fooshi baa qabatay. marka uurku u soo dhamaaday sida caadiga ah waxay aaday xaruntii ugu dhaweyd. xaruntii fiican uma shaqeynayn, waxay noqotay umulisadii inay guriga ugu imaato. muddo dheer kadib obstructed labor bay lahayd ama waxa ku adkaatay fooshii sababa jira awgood. hooyadaas waxaa ku dhacday in la arkay inaysan dhali karayn ama caadi u dhali karayn. waxa la isku dayay in la geeyo deegaankii ugu dhawaa ama meeshii ugu dhaweyd xarun caafimaad laga heli karay. sida caadiga magaaladaas gaariga ka soo baxa 3 beri way ku qaadataa inuu magaalo laamiga imaado ama magaalo uu caafimaad ka jiro dhakhtar micnihi laga heli karo. waxa la isku dayay magaalo xeebeed bay ahayd laash in la saaro. laash baa la soo saaray. laashka ayaa dhaqso badan, less than 6 hours buu ku imaadaa magaalada. waxaa dhacday laashkii qof aan aqoon u lahayn baa waday, uu la dhumay, badweyntu kula dhumay. waxay qaadatay 3 beri hooyada inay badda saarnaato. waxaa dhacday minkii baa qarxay, ilmihii wuxuu ku dhashay caloosha, ilmihii waa dhintay. hooyadii xaalad khatar iyadoo ku sugan baa la keenay magaaladii 3 beri kadib iyadoo kooma ku jirta of course. hooyadii waxaa dhacday ma aysan dhiman, alxamdulillah, horta that's a positive thing. ma aysan dhiman laakiin ilmihii waa ka dhintay, minku waa ka qarxay. hooyo 30 sano aan gaarin oo ilmihii 9aad siday, taa laftarkeeda ayaa waxay tahay caqabad kale. ilmihii 9aad siday haddana saasna ku weyday xubinteedii iyo naafo noqotay oo waxay qaadatay dhowr bilood in iyadii la xanaaneeyo la dhayo hawlo badan la fiiriyo. marka maanta waxaan isla arkaynaa khatarahaas ee sheekadaas waa the most simple thing aad maqlaysaan, oo waxa ugu fudud aad maqlaysaan. waxyaabo kasii daran bay arkaan xirfadlayaasha caafimaadka. khataraha qarsoon way badan yihiin. horta waxaan ku bilaabanaynaa some facts ama xaqaa'iq jirta adduunka dhan ka jirta, nambaro caalamiyan jira. hooyadu 85% hooyooyinka horta caadi bay u dhalaan. 10 ilaa 15% waxay ku dhalaan yani xaalado waxa dhici karta inay u baahato in la caawiyo, inay u baahato in wax una u baahato aysan caadi u dhalin. 3 ilaa 5% waxay u baahdaan in la qalo. yani percentage-ka aan ka qaylinayno inta dumarku waa la qalaya waa less than 5%. waliba caalamiyan markii la dhaho Soomaaliya waa ka sii yartahay. 20 ilaa 25% hooyooyinku way dhintaan xilliga uurka. markay uurka leedahay iyadoon wili dhalin ayay dhimataa. 40 ilaa 50 waxay dhintaan xilliga ay foosha ku jirto ama ay muxuu ahaa dhalayso. 25 ilaa 40 waxay dhintaan xilliga umusha. markaan ka hadlayno khataraha ma aha kaliya hooyada haday dhashay alxamdulillah khatartu way dhamaatay, no. xilliga umusha laftarkeedu waliba 7 beri u horeysay inta ka dambeysaba waa xilliyo aad ay khatar u tahay in ay hooyadu waxa la rabaa caafimaadkeeda aad loola socdo oo xaaladeeda lala socdo. hooyadana arkaysaan waxay ku nooshahay adduun hormaray. maxay ka fakaraysaa? labor bay ku jirtaa, fool bay ku jirtaa ya. waxay samaysanaysaa make-upkeedii say u ekaan lahayd, ilmaheedii hadhow sawirka ay la geli lahayd bay ka fakaraysaa. waxaad takhayushaan hooyo Soomaaliya joogta foosha markay ku jirto maxay ka fakaraysaa? maxaan nirahnaa 4 indhood oo nabada. yani annaga laftarkeena waxaan aaminsanahay hooyada tan ama iyada ama ilmaheedu way bixi karayaan oo ducada la isugu duceeyo waxa weeyaan 4 indhood oo nabada insha Allah. hooyada haddayba saa noogu dhashay 4 indhood aanu helno waa alxamdulillah, laakiin khatara intaa ka badan ayaa maalin walba hooyadu ay wajihi kartaa. Somalia is the worst country in the world to be a mother. wuxuu ahaa report 2015kii la soo saaray, Save the Children ay soo saartay. waxay dhaheen Soomaaliya waa meesha ugu liidata ee qof dumar ah hooyo ku noqon karto. why? 10 wadan oo maternal mortality ama dhimashada hooyada ugu sareyso ayay number 1 ka ahayn. waa 2015. hadda waa fiicannahay, still 10 waa ku jirnaa although, laakiin number 1 baan ahayn. okay, maxaa marka facts-ka Soomaaliya ka jira
facts Soomaaliya ka jira oo waxa weeyaan researchiga ugu dambeeyay oo la sameeyay Soomaali health demographic survey laga sameeyay Puntland iyo deegaanada Soomaaliya oo dhan 100,000 oo hooyo waxa la yiri 692 kamid ah ayaa geeriyooda يعني marka aragtid 100,000 oo hooyo waxa lagu yaabaa inay tiradu ku leeyahay laakiin adduunka markii lagu cabirayo 692 waxa aad u weyn waana 10 ka wadan baan wili ku jirnaa waxaan malaynayaa number 6 ama number 5 ba hadda ka soo galeynaa dadaallo way jiraan oo 2007 markii laga soo bilaabay ilaa 17kii nambaradu hoos bay u soo dhacayeen inkastoo dadaalka la sameeyay nambarku soo soo dhacaya aysan islahayn mar walba dadaalka la sameeyay waxa laga yaabaa iyo nambarka aan sugayno inaysan islahayn oo hooyada mar walba ay naga baxayso ay naga dhimanayso ay halkaasna ilmo badan nooga baaqanayaan xamleena ragana Soomaali hadii la helo wiilal badan baa naga baaqanay effort badan baa ku bixin lahayn waxa kaloo jira lifetime risk hooyo walba Soomaaliyeed 20kii hooyo oo Soomaaliyeed waxay khatar ugu jirtaa mid kamid ah inay dhimato yani lifetime aniga maanta hadaan uur leeyahay waxa khatar ugu jira inaan umul raaco ama muxuu ahaa ana uur la aan dhinto 20kii hooyo mid kamid ah ayaa dhiman karaysa maxaa sababa marka inay dhimato guud ahaan 28% hooyooyinku waxay u dhintaan xaalado hore xanuuno hore ay qabtay anaga marka maxaa ugu badan xanuunada hore waxa noogu horeeyay anemia hooyada xukuleed 4 baan ku dhalaa HB-ga 3 baan dhalaa hadda ilaahay ku badbaadiyo that doesn't mean always waa badbaadaysa hadda ilmihii ku horeeyay badbaadi ma aha micnaheedu mar walba ilaahay waa ku badbaadinaya 27% waxay u dhintaan dhiig baxaasi ha ahaado xilliga ay dhashay ama markay dhalayso ama iyadoo uur leh 14 waxay u dhintaan dhiikarka waxyaabaha hooyada inay markay uurka leedahay dhiikar ku dhaco iyo 12% infection inaan ka hadalno anagoo 2021 joogna laftarkeeda waxay tahay wax naxdina adduunka hormaray infection cid u dhimanaysa ma jirto bilcagsi inay u dhimato iska daaya developed countries ka hooyada inay dhimato waa 1% that means waa wax preventable waa wax lagu hortagi karo way iyagu ay u dhiman waayeen anagu u dhimanayna because anagu kamaana hortagin iyaguna way ka hortageen 9% obstructed labor waxa waaye hooyada inay awood u yeelan weydo inay ilmihii dhasho due to sababa jira oo kamid yahay obstructed laborka waxa koow ka oo sababa hooyooyinkeena waliba aad ka dhibta uu keeno gudniinka fircooniga gudniinka dhib badan buu u geystaa obstructed laborkana uu sababa abortionka ama hooyadii in ay dhiciso iyadoo uur leh ay dhiciso dhicis ilmihii noqdo kadibna maxaa ay dhig baxdo isaguna sabab badan buu keeni karaa iyo 3% oo ah in hooyadii ay u dhimato wax loo yaqaano xinjirowga dhiigga xinjirow inuu ku dhaco maxaa ka qayb qaatay marka knowledge is power hooyadu haddaysan aqoon ku filan haysan waxa imaanaysa in ay waxyaabihii loo sheegayo dhan aysan qaadan ma aha iyada keliya hooyada mas-uul baa laga yahay odageedii oo kale hadduusan aqoon ku filan lahayn dadkii mas-uulka ka ahaa xaafadihii haddaysan aqoon ku filan lahayn ama aqoontii loo sheegayo hooyada aysan ku dhiirigelinayn inay qaadato fariimihii caafimaadka way ka qayb qaadanaysaa in hooyada umul raaci u dhimato iyo nafaqada cidna kama fakarto hooyadan markay uurka yeelato nafaqadeeda maaha keliya markay uurka leedahay in laga fakaro haddaaba hooyo tahay you should think about waxaa cunaysid maalin walba hooyadan waa in laga fakaraa waxay qaadanayso nafaqada everything ay qaadanayso iyo health behavior goormaan caafimaad aadna maanta haddaa idin dhaho madaxa xanuunaya dhakhtar baan u socdaa maxaa isleedihiin waay ay madax xanuun dhakhtar u aadaysaa ma xabad barastamool cunto soo ma cidna ma aado xilliga marka ugu horeysa aan xanuunsano dhakhtar ma aadno behaviorkeena wuxuu yahay inaad daqiiqada u dambaysa sugno which is something oo saameyn ku yeelanayso hooyada markii ay fool ku jirto ama markii xaalad khatar ku jirto iyo 3 delays waxa waaye hooyadii 3 daahitaan inuu ku dhaco inay ka daahdo number 1 inay service caafimaadka raadsato inay ka daahdo service caafimaadka markay aado service laftarkiisa uu ka daaho oo hooyadii xarunta caafimaadka aado ay heli weydo caafimaadka ku filnaa ama service ku filnaa iyo inay gaari weydo anagu wax intaan arkayno ama intaan ka shaqaynayno waa deegaanada laamiga ku yaala deegaano badan baa waxaa jira laamiga ka baxsan oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo laamiga ugu dhow markay ugu fiicanta waxa laga yaabaa 6 hours oo kale inay ku qaadato meeshii ugu dhow ama 3 hours waxaas oo dhan hooyo foolanaysa saameyn bay ku yeelanaysaa ambulance ma jiraan badan emergency cars badan oo hooyooyinku soo qaadaya ma jiraan waxyaabahaas oo dhan waxay kor u qaadayaan in hooyadii ay u dhimato waxa loo yaqaano iyadoo uur leh ama iyadoo foolanaysa waxaa kaloo jirta hooyooyin waxaa jira waxay ku marka sababta maxay tahay sababta ay u aadi waayaan ama u raadsan waayaan waxa loo yaqaano
caafimaadkii ay u raadsan ama servicekii u raadsan waayaan horta 21% baa xarun caafimaad ku dhala dumarka Soomaaliyeed 21% kaliya xarun caafimaad ku garowadatan aan joognaba waxaa jira dad weli guryihii ku dhalaya aan xarumihii caafimaadka aadeen annagoo caasimadii joogno meel walba xarun caafimaad ay ka furan tahay 32% baa waxaa ka dhaliya xirfadle caafimaad oo tababaran micnihii qof bachelor ama diploma haysta oo wax soo bartay 32% kaliya bay ka inta kale waa umulisa dhaqameedna waxa aqoonta ay leedahay oo ka baxsan yani mahan inuu u dhasho way muhiimadu waxay raadinaysaa si u dhalan lahaa obstructed weeye wax kale weeye waxaas oo dhan kama fakarayaan markii la weydiiyay maxaa u aadi weydeen xarumaha caafimaadka 65% waxay dhaheen lacag ma haysano waxaan ognahay xarumaha dawladda inay lacag la'aan yihiin u badan yihiin lagu dhalo 62% waxay dhaheen distance to health facility way naga fog yihiin waa meelaha deegaanada aan ka sheekaynayno inta laamiga kaliya aan ka warhaynaa deegaano waxaa jira xarumo caafimaadka aysan ka jirin 42% waxay dhaheen waxaan u baahanahay in aan helno permission yani in aan dadkii ama ninkii ama dadkii mas'uulka ka ah inay u ogolaadaan in xarunta caafimaadka yani iyadoo soo maamul karto in la kaxeeyo solutions intaan gaarno horta wasaaradda caafimaadka shaqo aad u fara badan bay haysaa laakiin mushkiladda jirta waxa weeyaan annaga budgetka horta caafimaadka lagu bixiyo aad buu limited u yahay waxaan ku tiirsanahay waa hay-ado marka solutions ma raadin karno ama xal kama hadli karno haddaanan annaga isku filnayn waa inaan isku filnaana xalka ugu horeeya waa inaan isku filnaana annagu aanu caafimaadkeena annagu lacag ku bixinaa fundraising u samaynaa investment gelinaa haddaan u baahannahay inaan isbeddel sameyno waa inaan annagu investment gelinaa dadka adduunka caafimaadka iyo waxbarashada investment iyaga ayaa gashta iyaga ayaa wax ka soo saara waxa good example noo ahaa corona markuu dhacay lacag kasta haysatid garowa adoo jooga oxygen ma helaysid why aan investment ugu samaysan weyday why aan intaan muxuu ahaa ganacsiyo kale ku bixinayno aan lacag ugu bixin weynay xarumo caafimaad in aan lacag ku bixino xitaa dakhli waa ka helaysan lacag fiican laga helaa yes waa la socdaa marka solutions waxaan ku soo darayaa kale in طبعا la maalgeliyo budgetka lagu bixinayo caafimaadka in kor loo qaado budgetka caafimaadka lagu bixinayo wax u baahan yahay kor loo qaado in supervision badan lagu sameeyo si fiican loo eego in la baahiyo oo la tababaro xirfadlayaal caafimaad fara badan laguna khasbo haddii lacag la'aan dadka wax lagu baro waxa lagu khasbi karaa inay aadaan deegaanada fogfog qof laakiin lacagtiisa wax ku bartay anoo maanta garowa joogo jaamacaddeeda halkan ka baxay cidna iguma khasbi karto inaan deegaan fog aado laakiin haddii calal aqali markii hore investment la gashtay waa lagu khasbi karaa intaasaan kusoo gabagabaynaya waqtigayga intaas ahaa waa mahadsantiin